gudoomiyaha hay'adda SVO dikarin Siciid oo Cabdi ayaa maanta Gudiga COVID-19 ku wareejiyay jeermis loogu talagalay lagu buufiyo jeermiska ka dhashay caabuqa COVID-19 ugu horeyn halkaas waxa ka hadlay dikarin Siciid Cabdi oo gudoomiyaha hay'adda SVO anagu hay'adda wadaniga State First Volunteer Organization SVO waxaan ka bilaabnaa howlgal buufinta oo aragtaan qalabkii buufinta aan keenay oo ma garanaysaa disinfectionka ama fayraska ama bacteria dilayay anagoo marayna tallaabooyinka caalamiga ah ee WHO ay u dhigtay qaabka loo disinfection gareeyo alaabta loo disinfection gareeyo xanuunkan coronavirus viruskiisa loona buufiyo marka anagoo la kaashanayna ka hay'ad ahaan maayarka degmada Laascaanood iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland isduwaha gobolka Sool anagoo la kaashanayna halkan ka bilaabayna waxaan kaloo ka bilaabaynaa labada xarumood ee karantiinka meesha la yiraahdo xudun degmada xudun iyo degmada taleex waan ka bilaabi doonaa insha Allah billahi alkareem marka waxaan leenahay in gacmo wada jir bay wax ku qabtaan hay'ad ahaan iyo dawlad iyo shacabba xanuunkan waxaanu uga hortagi karnaa ilaahay naga haye inaynu gacmaha isqabsano in barbarkay ka baxdaa waa bakeela qalaan noqono marka insha Allah billahi alkareem waxaan ku soo dhaweynayaa odayaasha deegaanka oday kamid ah maamulka gobolka iyo wasaaradda caafimaadka iyo Gudiga COVID-19 aad bay u mahadsan yihiin alaabta ay gudoomeen waxa kale halkan iyana alaab qiimo la keenay hay'adda SVO oo runtii ahayd hay'adii ku soo dhiirigelisay hay'ado badan inay dalka yimaadaan marka laga reebo kuwii hore joogay oo ah inay nabadgelyo taala ka horeysay wax la keeno iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa halka saakaan laba shirkadood baan baa ku diraya saddex dhulbahanta runta isuma sheego ina Jabuutaayo waa sheegteen ina Siciid oo Cabdina waa sheegteen qalabkoodiina waa muuqda waa ragga waaweyn baan sheegaya anu saak ambalaasya taagan gobolku ilaa 10 ambalaas buu baahay waxaan jecelahay inay qaybsadaan telesom dahabshiil golis haas wararta shan inaga iibsan karnaa shanta shirkadood ee gobolka ugu waaweyn ee dakhliga ugu badan ka soo baxa waxaan jecelahay inay ka horeeyaan dawladda markay shan bixiyaan anaguna shan baanu ina bixi ka keenayna walaal inay gobolka wada ambalaas arkay hadaynu talada marno waxaan jecelahay in Gudiga COVID-19 lagu soo ururiyo sida ina Jabuutaayo ina Siciid oo Cabdi keenay shirkadaha waaweyn ee ganacsatada ee waliba dhulbahante ee dakhliga ugu badan ka soo baxaan ha ugu horeeyeen maanta sadaqada la bixinayo weynina haddaan nahay gobolka odayaasha gobolka iyo degmada waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ilaahay naga hayo waxa laakiin dadaalka awal gobolada kale aad nooga muuqanayso dawooyinkan iyo waxa la dhigdhigayay laakiin markii saaga waxna soo gaareen waxay la tahay dawladdu inay soo kordhin doonto awoodooda wixii gobolkan loogu talagalay hay'adana waxa weeye waa u hambalyeynaa iyadoo hay'adaas si wacan gobolkan ugu shaqeysa oo aanu leenahay waxa la wixii marsuul ah loo dhiibo hay'ada iyo waxaanu la wareegnay qalabkan naloo keenay oo uu siday ina Siciid oo Cabdi yaanu la wareegnay iyo wasiirka warfaafinta iyo god waa wada joogan haddaanu odayaalnahay qalabkan waanu qaadanay haddeerna waxaanu ka nimay cusbitaalkii cabdikariin Siciid Cabdi runtii waa talaabo oo xagga horumarka loo qaaday waana agab wax ka qaban doona baahida corona-19 ee ka taagan magaalada Laascaanood insha Allah suuqyada haday tahay hilibka iyo haday tahay khudradda iyo haday tahay suuqyada intaba waan ku buufin doonaa qalabkaana waanu kala wareegnay aad iyo aad buu marnabaad u maasan yahay tiimka SVO waxaa jooga gudoomiyayaashii barasaabkii gudidii